السلام عليكم. biyo-xireenka Itoobiya mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn caalamka, biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika, ahna kan tobanaad caalamka oo dhan. Khatarta ugu weyn ee soo wajahaysa Masar dhalin karana dagaallo ummado badan ku hardamaan. Waxaan ka hadlaynaa khilaafka adag ee labada dal u dhexeeyo iyo waxa uu yahay biyo-xireenku. laba qodob oo waaweyn ayaan uga hadlaynaa mawduucan. Waa maxay khatarta uu ku hayo biyo-xireenku dalka Masar? xaqaa'iq ku saabsan biyo-xireenka iyo faa'iidada uu leeyahay Itoobiya. aan ku bilowna khatarta uu ku haya Masar. marka koobaad aan ogaana qaabka dhulka Masar waa bacaad saxara ah oo webiga Niil sida faleenbadii u dhex maro. si aad u ogaato ahmiyadda webiga Niil u leeyahay Masar waxaa ku nool 100 milyan dad ka badan. 100kaas milyan waxay ku nool yihiin 6% keliya badka Masar ee gaarayo wax ka badan 1 milyan oo kiiloomitir, taasoo ah in 94 dhulka Masar yahay saxara haawanayona lagu noolayn. magaalooyinka Masar waxay ku teedsan yihiin sidii tusbax hareeraha webiga Niil markii laga hadlayo waxaa lagu tilmaamaa halbowlaha nolosha Masar. beeraha, wax soo saarka, dadka iyo xoolaha dhammaan waxay ku tiirsan yihiin Niil, taasoo ah in haddii hoos u dhac ku imaado heerka biyaha uu arrinkan si toos ah u saameynayo nolosha malaayiin Masaari ah. dalka Masar 95% biyaha la cabo waxay ka heshaa webiga Niil. khatarta ugu weyn ee Masar ka soo wajahaysa biyo-xireenka Itoobiya waa in markii la buuxinayo harooyinka biyo-xireenku ay ka dhalanayso in uu hoos u dhac ku imaado biyaha webiga Niil, taasoo ka dhigan in beeraha Masar biyuhu gaari waayaan, gaajo wadareed lagu hobtana ka dilaacdo dalka Masar. waxaa sii dheer cabsida laga qabo in haddii uu biyo-xireenku burburo ay ka dhigan tahay halaag guud oo ka dhaco Masar iyo Suudaan, fatahaadda ka dhalanayso haddii uu burburo biyo-xireenku. wadahadallo aad u dheer ayaa dhex maray Masar iyo Itoobiya ku aadan qaybsashada biyaha Niil ka hor iyo ka dambe dhisidda biyo-xireenka. Anwar Saadaat, Mubaarak, Mursi ilaa hadda wadahadallo aan natiijo lahayn ayaa dhex mara labada dal. قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي طبقا للمعايير الدولية، وذلك في بيان قرأوا على مجلس النواب عن فشل مفاوضات سد النهضة. إلى طريق مسدود آلت مفاوضات الخرطوم الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا على مستوى وزراء الري بشأن سد النهضة حسب ما أعلنته وزارة الري المصرية. arrinku wuxuu gaaray in Mubaarak uu Suudaan ka dalbaday saldhig ciidan si ay diyaaradaha Masar uga duulaan una burburiyaan isku day walba oo Itoobiya ku dhisayso biyo-xireen. diktaatoorkii Itoobiya Mengistu Haile Mariam ayaa 700meedii ku guudiyey in uu leexin doono webiga Niil. waa markii Anwar Saadaat uu ku fikiray gaarsiinta biyaha Niil jasiiradda Sayna ee Masar. ra'iisul wasaarihii Itoobiya ee ka horreeyay Abiy Ahmed, Haile Mariam Desalegn, Sisi iyo Albashiirkii Suudaan ayaa gaaray heshiis biyo qaybsiga, laakiin noqday hal bacaad lagu lisay. heer arrinku gaaray markii dambe in Sisi miciin bido dhaarinta Abiy Ahmed suxufiyiinta hortooda dhaaro in aadan dhib u geysanaynin biyaha Masar. والله لن نقوم بأي ضرر لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر للمياه في مصر biyo-xireenka weyn ama biyo-xireenka xuduudka, biyo-xireenka horumarka waa magacyo kala duwan oo loo yaqaano biyo-xireenkan. fikraddiisa waqti aad u dheer ayay soo jiitamaysay ilaa 1950meeyadii, laakiin dhisiddiisa waxay bilaabatay 2011. biyo-xireenkan waa kan ugu weyn Afrika, caalami ahaana kaalinta 10aad ayuu ku jira.
dherarka derbiyadiisa waxay gaarayaan 145 mitir balliciisana 1800 mitir waxaana ku yaala 15 waaxood oo koronto laga dhalin doono qiimaha ku baxay dhisidda biyo-xireenka waa $5 bilyan xukuumadda Itoobiya waxay leedahay mashruucan weyn waa kii aan uga bixi lahayn marada faqriga iyo dulliga saboolnimada waxaa biyo-xireenka laga dhalin karaa 6,000 oo megawatt tamar ah taasoo u dhiganta korontada ay soo saaraan 6 xarumaha waaweyn ee tamarta nukleerka ku shaqeeya biyo-xireenkan wuxuu Itoobiya ka dhigayaa dowladda ugu horeysa Afrika soo saaridda iyo iibgeynta tamarta korontada Itoobiyaanka si guud ahaaneed mashruucan waxay u arkaan mashruuc umadeed mashruuc ay sugayaan 100 milyan oo Itoobiyaan ah intooda badan ay ka hooseeyaan khadka faqriga 40 kiiloomitir wax ka yar ayuu u jiraa xuduudka Suudaan taasoo ka dhigan in Suudaan ay helayso koronto lacag jaban ah waana arrinka keenay in Suudaan ayna aad uga soo horjeedin dhisidda biyo-xireenka sida Masar oo kale 900 kiiloomitir ayuu u jiraa Addis Ababa korontada laga dhalin doono biyo-xireenkan waxay gaari doontaa wadamada Suudaan Eritrea koonfurta Suudaan Uganda Kenya Rwanda Burundi iyo Congo biyo-xireenku wuxuu howlgalka koronto soo saaridda bilaabi doonaa 2020 laakiin si dhammaystiran 2022 dhacdooyin la xiriiro biyo-xireenka Semenyo Bekele waa injineerkii ugu sarreeyay mas'uulna ka ahaa dhisidda biyo-xireenka laakiin 2018 ayaa asagoo meyd ah madaxan xabad uga taala laga helay gudaha gaarigiisii Bekele ma ahayn nin caadi ah waa nin 12 biyo-xireen ka dhisay Itoobiya geeridiisa waxay ahayd mid lama filaana su'aalo badanna la iska weydiiyay cidda dishay laakiin natiijooyinka uu gaaray booliska Itoobiya ayaa leh cidna ma dilin asagaa isdilay asagoo ka xun dib u dhaca howlaha biyo-xireenka arrimo la xiriiro khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhexeeyo Masar hadalkii ugu dambeeyay injineerkan wuxuu ahaa carruurtayda iyo xaaskayga xaaladooda la soco asagoo la hadlayay sekreteerkiisa aaska ay Itoobiyaanka u sameeyeen injineerkan ayaa ku tusinayo waxa uu ahaa إن نقصت مياهه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل فدماؤنا هي البديل فدماؤنا هي البديل tallaabooyinka hor yaalla Masar si ay ula tacaamusha biyo-xireenka 2 maalin ka hor waxaa fashilmay oo lagu kala dareeray wadahadal ka socday Khartoum fashilkaas kadib waxaa la isweydiinayaa waa maxay tallaabada ay Masar qaadi doonto si ay u badbaadiso jiritaankeeda khilaafka ugu adag wuxuu ka taagan yahay buuxinta harooyinka biyo-xireenka Masar waxay leedahay arrinkan hal la sameeyay muddo 7 sano gudaheed gaar ahaan xilliyada roobka halka Itoobiya arrinkan diidan tahay leedahayna buuxintu waa inay noqotaa 2 sano gudaheed Masar waxaa horyaala xaalad adag markii la fiiriyo qaabka ay ula tacaamulaysa biyo-xireenka iyo arrimaha la xiriira saddex hal wax ka baxsan ma samayn karto Masar xalka koobaad sii wadida wada hadallada laakiin aan xal keenaynin ilaa labada dhinac mid ka mid ah tanaasulo 2 in qadiyada biyo-xireenka la caalamiyeeyo inay Masar dalbato in qadiyada la horgeeyo maxkamadaha caalamiga waa khiyaar u muuqda mid ka xun wada hadalladaas fashilmay khiyaarka saddexaad ee ugu qaraar hardan military Itoobiya iyo Masar xuduud ma lahan Suudaan iyo Eritrea waxaana macquul ahayn in ay Masar u ogolaadaan adeegsiga dhulkooda waxaa xusid mudan marxaladda uu gaaray biyo-xireenka oo ah mid aanan ka soo laabasho lahayn haddii aan dhahno howlgal military Masar wax ka badan ma samayn karto duqayn iyo in sikadiisa ciidamo kumaandoos loogu dejiyo mandiqada biyo-xireenka kadibna la kharibo qalabka dhisidda Itoobiyaanku waxay ku kalsoon yihiin in xaaladda Masar markii la fiiriyo ay adag tahay inay la kulmaan weerar uga imaada Masar
waana sida uu yiri Malla Zenaawigii hore mar uu waraysi siinayay TV Masriya. Masar ma awoodo inay naga celiso waxa aan rabno in aan samayno. wadahadal waxaan ahayna waxba kuma helayso. Xusni Mubaarak wuxuu ku tilmaamay hadalka Zinaawi inuu yahay wax lala yaabo. cadawtooyada qalbigiisa ka buuxday ku aadan Masar. أول مرة أسمع أن احنا مساند أي قوة. jawaabta Xusni Mubaarakna waxay ahayd ma filaynin in uu sidaas u hadli doono Zinaawi xilli xiriirkeena Itoobiya yahay mid aanan xumayn. maalmaha soo socda waxay xambaarsan yihiin dhacdooyin xasaasi ah waanan arki doonaa sida ay wax noqon doonaan.